السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ربان إن مانتي إلى دقيستان عبد الشكور والوه يستي إنه كلا خيانة قرن حتى وحن دي كرا دم بقرن بوجله وحو جراه مقالة مدحنا ومدة الصوماليات مدحوينها ومدة الصوماليات إن ومرتي وجوية هاي مقدش أنا أسكله بيجراه هاي مياس هين دم بقرن هديتي هاري قبل لجوع عفية والدستور كل الجبير أو الجيس مري حد ميال لديه كرن مياس هين إن محكمة دي مرة بعد لجوع عليه تشيلكو كجرنا مرة بعد لجوع عليه ما قدامه أصل الله يستي إن خيانة قرن حتى وقله دم بقرن بل إلى دقيست إن كان وين وحو ده هو عبد الشكور dadka baraad degan community halka ku taasoo waxaan ku eedeeyaa dadka ku doonayeen laakiin anaga qabtida loo ahaa inaan sharci wax ku doono dadkii kale xoog wax ku doonaan runtii waa gool aqoonsan ee sida wuxuu yiraahay dadkan banaadir degan mise community-gan banaadir degan waxa Soomaalida kale u taqaana dad xun inay yihiin yaa soo tiriyay ummadda Soomaaliyeed meel walba ku nool yaa cod ka soo qaaday yaa soo tira koobay yaa soo ogaaday xageebe taala cadeynta muu noo sheegi kara meeshu ka soo ogaaday wuxuu yiraahday dadka banaadir degan waxa loo yaqaan inay yihiin dad xun dadka banaadir degan inay yihiin dad xun laakiin aniga waxaan u cadeynayaa dadka banaadir degan dad xun waa yihiin dad xun way yihiin dadka banaadir degan waxay ku xiyeen haday weydiinaysan ana ku sheegaya waxay ku xiyeen 30 sano ee Soomaaliya burbursaneed magaalada madaxda ummadda Soomaaliya Muqdisho meesha dadku u yaqaanaan waxay meesha kaliya ka dhisan Soomaaliya waxay ka dhigeen meesha u burbursan Soomaaliya waxay ahayd meesha Soomaaliya kaliya ee ka dhisan wuxuu hawiye ka dhigay meesha Soomaaliya u burbursan dad xun saasi ku yihiin dad xun waxay ku yihiin 30 sano ee la soo dhaafay maamula la dhistay Soomaaliland dawlad baa isku magacaawdo dhisatay Puntland maamul goboleed bay dhisatay oo Soomaaliland ka dhicin Muqdisho Soomaaliya u dhisneed oo nidaam iyo wax walba iyo wadooyin infrastructure wax walba haysatay dhulka la geliyay waxa laga hoos mariyay sidii ilaahay ku uuma laga hoos mariyay boor baa laga kiciyay dambas baa laga kiciyay guriyihii iyo geedihii la burburiyay laamigii la fiiqday airportkii baa la fiiqday madaxtooyadii baa lo iyo dameer lagu xareeyay nin walba gurigiisii intii lagu dhex dilay hadana la dhistay oo la qaatay oo la wareegay ina dad xuntihiin waxa ku ogaanaysaan isma maamuli kartaan ina dad xuntihiin waxa ku ogaan kartaa ninkan badda Soomaaliya gatay oo khiyaano qaran dawladdu ku soo oogtay maalintii la xiray kulli waa kacdeen oo mid qabtay ma jiro kiina ugu weyn iyo kiina ugu yar kulli waa taageerteen asaga waxana ku taageerteen wax walba galay ina garab taagantihiin waa mid hadda niigu mahad celintiisana waan dhigeysanaya bal marka koowaad iyo marka labaad waxaan igu soo celinayaa hadalkii uu Muqdisho yiraahday farmaajo ayaa marti noogu ah bareelo dhageysta dadka baraad degan community halka ku taasoo waxaan ku eedeeyaa dadka ku doonayeen laakiin anaga qabtida loo ahaa inaan sharci wax ku doono dadkii kale xoog wax ku doonaan runtii waa gool aqoonsan ee sida la waa maqasheen Muqdisho annaga martino loogu yahay Muqdisho annaga martino loogu yahay Somaliland dadka degan waxay yiraahdeen Muqdisho annaga nalama aqoonsana waxna ka malihin dadka Puntland degan maxaa la gudboon waxaan rabaa qofkii ugu horeeyay oo ku dhawaaqo Puntland inay ka go'do Muqdisho Puntland ani ma oranayo mana dhahayo calanka buluuga ha ka tagto calanka buluuga waxa lagu sameeyay galkacyo lagu sameeyay waxa sameeyay nin Puntlander sameeyay waxa sameeyay dadkaas Puntland ka soo jeedo waxaan kula dalnaa calankooda buluuga inay la noqdaan oo yiraan Muqdisho calanka noo daawaan la noqonay kana go'an ninkan maaha kii koowaad kii labaad maaha kii saddexaad maaha nin walba oo siyaasi ah oo hawiye meeyka soo qabsada wuxuu yiraahaa Muqdisho unuka iskale
fiqi baa ka horreeyey oo bishii hore hadlay wuxuu yidhahay maxamed siyaad bare annagaa dilay magaaladan annaga ka ciirsanay annagaana iskale farmaajo u booteenayo kan wuxuu yidhahay magaala madaxdan annaga marti noloogu yahay waa nin u tartamay madaxweyne inuu aniga ii noqdo inay adiga kuu noqdo wuxuuna aaminsan yahay muqdisho inuu qabiil iska leeyahay 2016 mise 2016 hadduu rayn lahaa maanta wuxuu aaminsan yahay soo kumuu dhaqmeeno waxay la dagaalayaan waa farmaajo nin daarooda filla Soomaaliya kuma haysto iska daaroode qof bareexana uma shaqeeyo filla Soomaaliya waa nin professora qalin iyo buug buu wataa wuxuu rabaa inuu si uu dawladnimo ku dhaqi lahaa wuxuu rabaa inuu cadaalad ummadda Soomaaliyeed mariyo wuxuu iska dheereeyay dadkiisii iyo ehelkiisii wuxuu iskaga dheereeyay inuu dadka tuso inuu cadaalad yahay waxay la dagaalayaan nin ayaga dan u ah waxay u ordayaan nin aaminsan oo daarooda sida Cabdishakuur kala aaminsan inay garow tahay magaala madaxdii ummadda Soomaaliyeed oo niyadda ka aaminsan laakiin dadka iska dhigaya nin fiican inuu yahay sida ninkan uu shalay noo ahaa inuu yahay wadani Soomaaliyeed inuu madaxweyne u carraayay in kastaana wada ogeyn inuu tuug yahay inuu khiyaanoole yahay inuu badi gatay inuu dhulka Soomaaliyeed gatay inuu adiga hadda ku kadana waa ogtahay welina qabiil baa ku taageeraysa meesha burbursan waa Muqdisho meeshan iscelin karin waa Muqdisho shalay Cabdullaahi Yuusuf ayaa qabtay oo 30,000 oo ciidan Soomaaliyeed oo Puntland kala imaaday oo soo dhistay ayuu ku imaaday uu ku xoreeyay fil Soomaaliya maanta farmaajo wuxuu ku joogaa waa imitaankii Cabdullaahi Yuusuf ilaahu naxariista adigu maada soo dhisani adigu ismaada qabano fil Soomaaliya inta dhistay dadkii ummadda Soomaaliya isku maada yeerin intii lagu imaaday oo cadawgii laga celiyay dadka ku gadanay oo miiska ku saarayay intii laga kaxeeyay oo fil Soomaaliya magaala lagu soo celiyay fil Soomaaliya ahaan jirtay maanta farmaajo saa ku imaado doorasho ka dambeysay ee Muqdisho lagu soo dhisay maanta waxa harta inaan ku celisid 1991kii hawiyaha la sheegay Muqdisho degan iskuma naxan intooda ka lacagaysatay bililiqada iyo kufsiga iyo dhaca iyo ummadda xoolahooda ayaa kuwada gaajada waxay ka dhaadhiciyaan inay hawiye isla yihiin warninkan adiga asxaan kuma ahayo warninkan adiga kuma biilo warninkan lacag kuma siiyo war waxa asxaan ku ahaya ninka farmaajo oo qabiilkiisii iyo dadkiisii iyo ehelkiisii intuu ka dhaxbaxay adiga madaxweyne ku noqday warninkan badii buu ka tay waa ogeed warninkan hadda khiyaano qaran baa lagu qabtay dastuurkii dii la jibiyaa oday lagu dhameeyay qabiil lagu dhameeyay oo la farmaajo ninkan waa ognahay dambiga ku haysa laakiin dadkan hawiyaha ma celin karee waxa dhahay waa abgaal dadka hawiyaha ma celin karee ninkan fasaxiisii qaladka iniga korka dhiga saarana because ummadda Soomaaliyeed hadday dhahdo ninkan khiyaano qaran buu galay waana sii deynay dad badan oo Soomaaliyeed baa qaracmay dhiikar u dhigmanaya marka waxa la qaatay in la yiraaho ninkan khiyaano ma gelin حتى عالم كلا يابلا نخ خيانة قرر لوسو يدي وهذا اللي وهاي إلا سيدايو شرف كدع استراديس أيد يرد وحي وقادتي وحتى إن أقرتي إن النكر أيدا كقرترنا نكر ده هاي عاصمة الصومالية ونكر أسكالي بالإلد جيست مرة أفرادي مرشنات. لكن أنا قصيدة براءها من أشد وحدودهم قلت كان يحوق وحدودهم قلت وقول أفغانستان أن وحو كلية هاي أنني مرتين نروها مركز شرعي وحكو دوننا waxaan ii sheegay wuxuu ka wada haddii wax kale u faahantay maada sharci ku doonano waxay aaminsan farmaajo markii hadda la soo dooranayo waxay dhaheen lacag buu ka soo qaatay qadar in lacagtaas oo lagu doortay aniga waxa ka soo qaatay lacag imaaraadka lacag buu soo qaatay farmaajo maxay tiisi u noqon weyday khiyaano qaran teedina khiyaano qaran u noqotay tii farmaajo maxay khiyaano qaran u noqon weyday teedina khiyaano qaran u noqotay waa tii hawiyu iska dhadhicinayaan waa tii hawiyu sheegayaan tii farmaajo khiyaano qaran waxay ku noqon weyday dawlad ku duminayna adduunka dhan iyo caalamka waxa ka jirta in aad lacag ku kaambegaraysid oo madaxtinimadaada iyo dadka ku shaqeynaya xafiiska ku fiiraysid iyo shaqaalahaaga iyo qof walbeeto in lacag ku bixin kartid waa inaad la imaadid laakiin midii laga soo qaaday imaaraadka waxay ahayd dawlad in lagu damiyo in wadankan intii lagu damiyo dawladda qabiil iyo balaayo lagu celiyo taas miyaysa khiyaano qaran ahayn labada lacagood in isku meel la dhigo ma ahan mana dhici karto isku meel ma aha dadka isku matalayo
waa dad qabiilku kala wen yahay inay runta arkaan inay xaqiiqda ka hadlaan anigu waxaan u sheegayaa oo mar labaad ku soo celinayaa Puntland sida ugu dhaqsiyaha badan inay ka go'do Muqdisho calankeeda buluugana la noqoto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh